idin kaga mahad celinayaa maanta inaad noo yeertaan oo aadna dhageysataan waxna naga weydiistaan wasaaradda haddii aan ku hormaro qorshe hawleedka sida ku qoran jadwalka qorshe hawleedka guud ee wasaaradda caafimaadka dhammaan dokumentiyadan hadda aan halkan soo dhignay waxa ay ma aragtay waa dokumentiyada wasaaradda caafimaadka ay ku shaqeyso sida commitment sheetkii golaha wasiirada aan xafiiska ra'iisul wasaaraha aan la saxiixanay essential package of health service oo ah documenti framework for service delivery yani qaabka serviceka loo bixinayo documentiga hagayay ee u ahaa maaragtay dastuurka loo maro adeeg bixinta u ahaa halkan ayuu ku jiraa soo kale health sector strategic plan 3 oo la cusboonaysiiyay 2022 editionkiisa saddexaad ayaa soo kale aan ku shaqeynaa documentiga soo kale national health policy oo 2014 la hirgeliyay iyo waxaa jira soo kale investment case for Somali health sector oo cadeynaya asigana lacagaha lagu maalgeliyay sectorka caafimaadka meelaha priority leh in la geliyo ay tahay qeexaya asigana universal health coverage road map 2023 ilaa 2023 dokumentiyadaas oo dhan iyo siyaasadahaas way siyaasadaha maaragtay ay ku shaqeynayso wasaaradda caafimaadka ay ku shaqeyso shuruucda hortabinta u leh wasaaradda ee u qabsooma maaragtay u qorsheysan waxaa ka mid ah sharciga daawada iyo qalabka caafimaadka oo waqti badan aan gelinay golaha wasiiradana ay ansixiyeen oo qorshihiisa ahaa in loo soo gudbiyo golaha baarlamaanka laakiin caqabad ay ka taagan tahay inaan isla wada xalinana ay muhiim tahay waxaa jira soo kale heshiiska caalamiga ah ee xakameynta tubaakada oo dunida inta badan ay saxiixeen annagana hadda aan soo diyaarinay golaha wasiiradana aan u gudbinay wasaaradda cadaaladda aan u gudbinay oo aan ka sugayno inay kasoo jawaabaan kadibna aan u gudbin doono golaha wasiirada aan u gudbin doono sidoo kale heshiiska caalamiga ee xakameynta waxyaabaha lagu bedelo naas nuujinta ayaa soo kale aan soo wadnaa inaan golaha hor keenno waxaa soo kale aan sameynay xeer nidaamiye oo maxay ahayd qeexaya consent formka haddii gabadha markii qalin ay galayso dhibaato waxay ka taagan tahay yaa saxiixaya oo mararka qaar intii la raadinayo qof saxiixo iyadoo ninkeeda uu joogo mararka qaar waalid iyadoo la raadinayo mararka qaar waalidka ay diidaan ayaa laga yaabaa inay dhimato intii consent formkii yaa saxiixaya la raadinaya marka ayadana sharci baan ka diyaarinay oo xeer nidaamiye oo hoostaga xeerka sharciga guud ee golaha muhiimadayaasha caafimaadka ee hore iyo golayaashan u ansixiyeen xeer nidaamiye aan kusoo kordhinay oo aan rabno golaha wasiirada ayadana inaan hor keenno oo aan u gudbinay wasaaradda cadaaladda hadda xaggeed naga jiro xaggooda inuu kasoo dhamaado aan sugayna ayadana kuwaas ayaa ka mid ah shuruucda ilaa hadda u qabsoontay wasaaradda xaaladda guud ee muxuu ahaa caafimaadka meesha waxaa ku qoran xaaladda guud ee wasaaradda caafimaadka xaaladeeda aad bay u sareysaa waxaan u malaynayaa waa markii ugu fiicneed wasaaradda caafimaadka sida aad horey maaragtay ula socoteen warbaahinta xarumo badan ayaan hirgelinay national public health emergency operation center ayaan xamar caasimadda aan ka dhisnay oo lagala socon karo cudurrada dilaaca lagala socon karo laga ilaalin kara waxaan soo kale xaruntaas soo kale ka hirgelinay maamul goboleedyada qayb ka mid ah sida Jubbaland iyo Galmudug waxaa kaloo hadda la dhagax dhigay Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeedna waa la dhagax dhigay sidoo kale waxaa maanta aan furnay hadda aan ka imaadnay oo qaarkiin ay nala joogeen kaydkii daawada tan iyo burburkii aanan dib loo yagleelin ayaan maaragtay ku guuleysanay muddo 4 sano ah soo socday in maanta soo gabagaboobo oo xariga aan ka jarno oo maanta uu diyaarsan yahay inuu daawada dalka la keeno oo dhan lagu kaydiyo ay heerkul ku habboon lagu ilaaliyo lala socdo tayadeeda lala socdo la diiwaan geliyo daawooyinka dalka soo galaya oo dhan ayaa hadda maanta aan ku guuleysan inaan soo furno ra'iisul wasaare xariga uu nooga jaro waxaa hadda dhisnoo gabagaboobay asna usbuucan dhexdiisa aan xariga ka jari doonaa bangigii usbuucan ama usbuuc ku xigay goortii noqoto bangigii dhiigga asana hadda qalabeyntiisa ay noo soo dhamaatay waxa aan ku guuleysanay ayadana xarig jarkeeda aan mar dhow maalin dhow aan xarig jari doonaa xarun kaliyaha lagu dhaqo oo laga dhex furay isbitaalka Banaadir
oo ay dhismaheeda iyo maalgelinteedaba naga saacidayaan King Salman Center for Humanitarian waxaa sidoo kale qorshaha noogu jiro hadda socdo in dib loo yaqleelo collegeynadii dalka uu lahaa oo tan iyo burburkii collegeyn oo maaragtay guud oo talaalkii lagu keydiyo Nairobi ayaa maaragtay wax yar noogala soo qaadayay oo collegeynkan uu yaalay sidii lagu soo rari lahaa maamul goboleedyadana loogu sameyn lahaa ayaan ku howl jirnaa oo hadda maaragtay qaarkood la dhagax dhigay marka wasaaradda waxaa hadda ay ku mashquulsan tahay wixii ka burburay Soomaaliya caafimaadka ku saabsan inay dib u soo celiso qaarna waa la soo celiyay qaarna hadda lagu mashquulsan yahay waxaa sidoo kale muhiim ah oo ku mashquulsannahay xarumihii danta guud ee wasaaradda ay lahayd inta badan qaxooti ay deganaayeen sidii dib loogu soo celin lahaa oo loo howlgelin lahaa xarunta maanta aan soo furnay oo warehouse-ka ka mid ahayd meel qaxooti ay deganaayeen oo 300 oo qof ay deganaayeen lagu guuleystay in laga raro lagu qanciyo inay ka guuraan lagu guuleystay xarumo badan oo wasaaradda ay leedahay oo sidoo kale maaragtay dad hadda ay degan yihiin waxaan ku mashquulsanahay sidii lagu soo celin lahaa waxaan dhihi karaa wasaaradda waa xaaladeeda aad bay u fiican tahay horumar badan way hiigsanaysaa wax badan oo u qabsoomeen tan qodobka kale oo ah mashaariicda caafimaadka mashaariicda waxaa yaala wasaaradda mashaariic ay ka mid yihiin mashruuca damal caafimaad uu ka mid yahay oo World Bank uu ku deeqay ilaa lacag 100 milyan ahaa procurement process-kiisa waqti dheer qaatay laakiin hadda way soo gabagabowday service delivery ayaa bilaabanaya adeeg bixinta ayaa bilaabanayso howlihii oo process-ka dheer qaatay hadda way soo gabagaboobeen waxaa kaloo jira mashruuc la yiraahdo COVID-19 vaccine project oo asigana ilaa 68 milyan ah mashruucaasi asna waxaan rabnaa in uu ka tago wax muuqdo oo la taaban karo dhaxal u noqdo ummadda Soomaaliyeed waxaan qorshaysnaa marka hore aniga markaan imaanayay waxaan amray mashaariicda oo aan markii dhamaadaan wax la taaban karo aanan ka tagin in ay muhiim tahay wax la taaban karo raago oo dhaxal noqdo inay ummadda ugu tagaan inay muhiim tahay ayaan amray waxaa la geliyay qorshaha lagu qanciyay in isbitaallo 6 ah laga dhiso mashruucaas ayaa qorshaha la geliyay mar labaad 6 isbitaal oo 6 maamul goboleed laga dhisayo maamul goboleed hal isbitaal laga dhisayo oo ilaa 2 milyan qiyaastii ay ku bixayso isbitaal walba maamul goboleedyada ayaa soo gudbistay isbitaalada meesha laga dhisayo ayaga soo gudbistay mar labaad ayaa lacag 13 milyan ahayd oo loogu talagalay talaalka covid in lagu soo iibiyo ayaa waxaan codsanay in laga wareejiyo talaalka maadaama talaalka lacag la'aan aan ku helno uuna noo yaala hadda in loo wareejiyo ayadana dhismo isbitaal mar labaad 13 milyan waxaa qorsheynay in 6 isbitaal kale lagu daro oo ayadana mar labaad maamul goboleedyada loo diray waraaqo la leeyahay isbitaallo laba mid maamul goboleed walba isbitaal labaad soo diro meesha looga dhisayo marka sidaas ayaa waxaa ku suuragalayso mashruucaas COVID-19 in laga dhiso 12 isbitaal lagana qalabeeyo dhakhaatiir takhasus lehna loo qaato marka waxaan aaminsanahay haddii taa aan ku guuleysano dalka in 12 isbitaal lagu soo kordhiyo qalabeysan dhakhaatiir takhasus lehna loo qaato haddii lagu soo kordhiyo mashruuca ugu yaraan wax dhaxal ah ayuu raabi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo waxaa jira sidoo kale mashruuca oo loo yaqaan RCRF mashruuc weyn waa wasaaradda maaliyadda laga maamulo component waxaan ku leenahay anaga la yiraahdo female health workers ilaa hadda 1000 iyo xoogaa gabdhood ayaa la shaqaaleeyay maamul goboleedyada oo dhan laga shaqaaleeyay oo gabdhaha maaragtay wacyigelinta caafimaadka loogu talagalay inay guryaha tagaan oo hooyooyinka ay soo baraarujiyaan oo ay maaragtay MCH-ka inay hooyada ku xirnaato inay ku baraarujiso ahmiyadda ay leedahay in maaragtay hooyada daryeel caafimaad inay hesho inta uu kale in ku baraarujiyaan loo tababaray marka waa gabdho maxay ahayd tababar la siinayo telefoonno oo maaragtay daatadii xogta ay ku soo gudbiyaan la siinayo loo tababarayo ayadana dalka oo dhan ay ka shaqeeyaan gabdhahaasi waxaa qorshaha uu yahay ilaa dhowr kun kale in la qaato haddana waxay marayaan 1000 iyo xogaa ay marayaan mashruucaasna si fiican u shaqeeyaa nearly asagana 42 milyan qiyaastii ah mashruuc kale waxaa jira asagana la yiraahdo SCRB wasaaradda maaliyadda soo kale laga maamulaa component aan ku leenahay asigana oo la yiraahdo CCU waagii hore component oo la yiraahdo SARC ayaan ku lahayn oo emergency markuu socday uu dhamaaday hadda waxaa bedelay component kale oo la yiraahdo CCU critical care unit oo asna qorshihiisa uu yahay ilaa 8 isbitaal in maxay ahayd laga dayactiro lagana qalabeeyo qorshaha noogu jirta ayadana nearly 17 milyan ah qiyaastii ilaa 4 mashaariic ayaa ugu waaweyn mashaariicda World Bank-ga oo hadda wasaaradda ay gacanta ku hayso mashaariic kale waxaa jirta World Bank aan ahayn sida maaragtay Global Fund
oo naga taageerta saddexda cudur ee kala ah TB-da malaariyada iyo HIV-ga naga taageerta iyo sidoo kale Gavi oo hay'adda Gavi oo ayadana naga taageerta talaalka vaccinationka soo iibinta talaalka iyo maaragtay naga taageerta waxaa kaloo jira sidoo kale mashruuc IOM ay naga taageerto oo aan xiriir ahayn laakiin face u bilowdo oo la yiraahdo Mida Finson Project Medical Project wasaaradda waxbarashadana component ay ku leedahay caafimaadkana component ay ku leedahay Mida Finson Medical Project dhaqaatiirta oo cudurrada haweenka iyo cudurrada carruurta qayb ka mid ah ayaa maaragtay laga shaqaaleynaya dadka ku takhasusay cudurrada haweenka iyo carruurta waxaa loogu talagalay mashruucaas asalkiisa diaspora doctors aqoonyahanada dhakhaatiirta diasporaha Soomaaliya qurbaha jira in dalka lagu soo celiyo asalkiisa loo asaasay waxaana codsanay in la balaariyo local doctors lagu soo daro oo weeraan loo kala qaybiyo ayaana codsanay marka insha Allah asigana dhakhaatiir Soomaaliyeed ilaa maaragtay 20 ka badan ayaa laga shaqaaleyn doonaa mashruucaas asigana mashaariicdana intaas ka mid ah wixii faahfaahin aad weydiisaan technical teamka way nala joogaan waa idinkaga jawaabi doonaa laakiin mashaariicda aan gacanta ku hayno kuwaas ka mid ah xaaladda wasaaradda halkaas ay maraysaa shuruucda ilaa hadda aan hayno kuwaas ka mid ah marka soo dhawaada aad baa u mahadsantiin